say noqotay markii la gubay maya sidaas ku gudhay waba ku gudhayba marka waxa weey alaabtani waxay isugu jirtaa caano waxa ku jira kariim sharaab daawooyin soo tamarada waxa ku jira daawo waxa ku jira baashi isku filantii kariimkii dhammaan waxaad arkaysaan waa wixii aan ka soo guray magaaladeena ee egasbaayirka noqday marka waxa weeyaan inta ay ka badan runtii way ku jirtaa marka waxa ka codsanaynaa dadweynaha magaalada inagoo la faheena iyo ubadkeena iyo ayaheennaba ilaalinayna in laga digtoonaado gacan lagu siiyo meeshay wax yaalaanba qofka wax iibsanaya isaga og wixii dhacay inuu noo soo sheego gacan lagu siiyo ayaa ka codsanaynaa alaabo niman baa xuskalo oo yaalinta qaamin ay noo dhiibeen oo yiraahdeen way dhacday qabta waxa ku jirta alaab ay ka hadlay 40 cisho waxa kamid ah sharaabka dawooyinka kale niman qaamin noo dhiibeen marka waxa ka codsanaa nimankan bakhaarada waaweyn ee gaar ahaan waliba sharaabka yamanta iibsha sharaabka dhacay iibsha waxa ka codsanaa inay si sharaf ah keenaan iyagoo waliba dadka ka iibsay dukaanadeena ka iibsay dukaanadina digniin siinay marka waxaan baa ku jeedinayaa inay sharaabka yamanta ee dhacay ee faanta casaanka isbreedka raanida ay iska keenaan waxaan sharaabka dalkaay waxaan halka cadeynaya in sharaabka magaalada yaalay kadaastaa marka laga reebo ka qarada ku jiray dhammaan oo dhacay ya marka dadweynaha waxaan uga digayaa inay ka iibsan sharaabkaas dukaanadeena iska keenaan bakhaarada yaalay wax ka iibinayana intaana gacantooda tagaan iska keenaan السلام عليكم. alaabada waqtigeedu dhamaaday waxa kamida sharaab waxa kamida dawooyin waxa kamida kariimada la ismariyay markay soo qurxiyaan waqtigeedu dhamaaday marka waxaan maanta halkan waxaan la dardaarmay saddex qolan kala hadlaya qolada koowaad waxa qolada bakhaarada ergeysi wax u safra waa inay eegaan alaabta ay soo jireen waqtigeeda waa inay eegaan expired date product expired date wana eegaan qolada labaad waxa weey macdaarada iyo dukaanada wax iibsanayaan waa inay markay bakhaarka wax iibsanayaan fiiro gaar ah hadana eegan walaal saddex waxa way shacbiga wax iibsanayaan waa inay iska eegan deedka ku qoran alaabta marka waa inay noo soo sheegan soo gudbiyaan dawladda hoose si aan wax uga qabano iyagoo qabtay hawl aad u muhiim ah soo ururiyay alaabooyinkii dhacay ee dadka u keeni lahaa dhibta alaabadaas waxa haya bakhaar kamida magaalada dukaanno kamida waxaan ka codsanaynaa ganacsadayaashaas in marka alaabtu ay ka dhacdo ay la soo socodsiiyaan hay'adaha ku shaqale hay'adda hay'adda dawladda hoose hay'adda tayaynta si wixii dadweynaha looga ilaaliyo in ifya aakhira midna kuma fiicna inaad ubadkaaga ka iibiso alaaba dhacday kolley sheekhyana way nagu jiraan oo diintu waxay ka qabtaan sheekhdada ay noo faahfaahin doona gudoomiye ku xigeenka iyo xildhibaanada doona way hadli doonaan assalaamu calaykum waxaynu halkan ku arkaynaa wax waxyeelo ah insaanka in la waxyeeleeyana diinta islaamku way xaraantinimaysaa diinta islaamkuna insaanka noloshiisa ku dadaashaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu leeyahay qofka qof nooleeya fakaannama ahya an-naas jamii'a man ahya yani qofka hal qof nooleeya inuu ummadda oo dhan nooleeyay ka dhigeen qofka hal qof dilaana inuu ummadda oo dhan dilay oo yani dulmi ku dilaana inuu ummadda oo dhan dilibu ka dhigeen nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam maalmaha kamida isagoo oo meel maraya haruur lagu iibinayo ayuu gacanta geliyay weel haruur lagu iibinayo haruurkiina dusha caadi buu ahaa gudaha markuu gacanta geliyay dhudhunka inta geliyay ayuu u tagay balal iyo qoyaan markaasuu nabigu ka soo saaray kaleeyhi salaatu wasalaam ninkii iibinayay buu ku yiri waa maxay waxani buu ku yiri qoyaankani waa maxay markaasuu ku yiri rasuulkii ilaahay robba ku dhacay markaasuu ku yiri ma dusha soo marisid nabigu kaleeyhi salaatu wasalaam halkii wuxuu ka yiri xadiis wuxuu yiri man ghashana falaysa minna yani in ummadda la khayaameeyo oo dawada la isku mudo ha noqoto ama tajirka la ismariyo ha noqoto ama waxyaabaha la dhoonyada ee la cabo ama la cuno loo qariyo iyadoo oo expire yani dhacday yani shariicada islaamku way xaraantinimeynaysaa marka anagu ka dawlad hoose ahaan waxaan u heelanahay inaan shacabka ka ilaalino waxyaabaha xadgudubyada u keenaya gudahooga iyo dushoodaba marka waxaan leenahay hal iska ilaaliyo ganacsatadu ha iska ilaaliso
wixii shacabka waxyeelanaya dadka ganacsatada ay soo xilqaamay ee soo gudbiya waxyaabaha dhacay ee ogaadeen inay dhaceen ummadoodana badbaadinaya ayaan u mahad celinayaa waxa kale oo aan maxaan ku raahdaa fariin u dirayaa dadka ee maxaan ku raahdaa ka ganacsada waxyaabaha dhacay ee u qarinaya dadka in ilaahay ka cabsoodaan oo dadka maxaan ku raahdaa ummadda ay ka daayaan waxa dhacay ee ka iibinayaan waayo waxa ay ka helaan waxa weeyaan xaaraan dadkiina way galafteen oo way leynayaan anagu ka dawlad hoose ahaan khaasatan waliba waaxda arrimaha bulshada oo mas'uuliyad xoogii ay naga saaran tahay hawshaasi inaanu dabagalno si maamulkuna nagu garab taagan yihiin oo mar walba xiiliyaho habeenba ag socdaan waxaan xil weyn iska saarnaa in sidaan dadkayga u badbaadin lahayn aan uga badbaadin lahayn waxyaabaha dhacay haday tahay iyo wixii caafimaad darro u keenayaba waxaanan maxaan ku raahdaa u sheegaya dadku inay iska hubsadaan mar walba waxay iibsanayaan oo iska eegaan ganacsataduna halka ay ka soo iibsanayaan ba waxooga maxaan ku raahdaa inayna xaaraan gelinin dadkoogana ayna maxaan ku raahdaa galaafanine ay marka horeba wax dheydkiisu hagaagsan yahay ay soo iibiyaan dadkana aan waxyeelaynin maxaan ku raahdaa iyagana aan waxyeelaynin in muddo abaan hawsha ku jirnay maanta waxaan haynaa oo fariin baaqayagii ugu dambeeyey uu gaadhay farmasiyada iyo dhakhaatiirta degmada ku nool waxaan leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaan haynaa maanta waa dawaduna way ka daran tahay waxyaabihii hore aan uga soo shaqaynay ama sharaabyadii ama kariimyadii iyo hawlihii gaarka ahaa way ka daran tahay waxaan haynaa maanta dawooyin dhacsan oo markay fariimihii ay gaadheen farmasiyadii iyo dadkii ganacsiga ka shaqaysay qaybta ka ganacsanayay iska soo xil saaray oo yiri waxaan haynaa dawooyin dhacday oo maanta arkaysaan u jeedaan waxaan leenahay bulshadu fariinta ay isgaarsiiso waa muhiim inaan ka wada shaqeyno fayadhowrka caafimaadka bini aadamka badbaadadiisa degmadan boorama dadka ku nool badbaadinteeda waxaan leenahay bulshada ka ganacsata waxyaabaha adeega waa bulshada ee ah ama dawo ha noqoto ama sharaab ha noqoto fadlan ilaaliya ummadiina cidda kaliya ilaalin kartaan waa idinkaan leenahay annagu waxa mas'uuliyadii naga saaran tahay waxa weeye ummadan annagu badbaadinteeda tukaan ma wada geli karna boorama laakiin waa mid aan la kulanno mid iyo dhif marka waxaan leenahay ganacsade isaga ayaa og waxa tukaanka u yaala ummadaada badbaadi baan leenahay waxaan leenahay ha ku dhaqmina khayaamo ha ku dhaqmina alaabadan imika waxa la extension baa lagu sameeyay dawadan hayno waxa la kordhiyay oo dheeytayga la arkayaa inta la masaxay kii hore ku dambo cusub lagu sameeyay si kasta ha ahaataba haddana waa taa maanta la soo gudbiyay taasoo bulshada si dhex gashaana waxay noqon lahayd caqabad kale marka waxaan leenahay badbaadiya ummadiina leenahay ganacsatada assalaamu calaykum baada saxaafada aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaan leeyahay hawlo aad u muhiim ah idinku haysaan nala dadaalaan leenahay insha Allah assalaamu calaykum magacayga Cabdulqaadir Cabdi Hayre anoo yeerkan ka dawladda ee dhibaatada abigeysay waxaana galay magaalada Raxaka xaafada Waraq haddaan ka warbixino annagoo ah maamulkii degmada waxa jirta in ninkan uu la jeer yahay halkan dawada aan ku gubayno iyo alaabada dhacday waxa weeye xaafadaha soo jeeda maalin maalmaha kamida ayuu soo qaaday dawo dhacday wuxuuna iska mariyay wajiga weedinka arkay raadka ay ku yeelatay waxa daatay iskinkii jirkii ayaa daatay waxaan haynaa dad timuhu daateen marka dhibaatooyinka ay leedahay alaabooyinka dhacay waa inta ugu sahlan waxaan oran karnaa waa taas waninka maanta wajigiisa aad arkaysaan bulshada markaan waxaan u iftiiminaynaa waxaan leenahay waxa ugu yareen soo gaari karaa waa kaas ka gudaha hoose bini aadamka ku dhici kara intan dahaarka hoosana daway ka sii daran tahay waa kansar iyo wixii ka sii daran